si lamida dhabarkayga waxaa ka muuqdo calanka Djibouti. waxaa laga yaabaa in isweydiinayso in kaalinta labaadna waxaan sii lahay jaaliyada Puntland ee ku dhaqan dalka Faransiiska, midda aan ka tirsanahay ee Galmudug, midda aan u dhashay ee Hirshabeelle iyo kuwa kaleba. salaamullahi calaykum meel walba joogtaan Soomaalida aan ka dhashayo. halkani waa page-ka aan Facebook ku leeyahay ee Samawade Media oo aalab ah kala socotaan arrimaha bulshada, siyaasadda iyo waliba reaction qabshaxdiisa iyo karkarkiisa wato. si lamida waxaad naga daawan kartaan bartaan ku leenahay YouTube-ka ee Farxadda Media, waliba TikTok-na reaction-ka iyo falaaqaynta gaagabneed aan ku joognayo. magaceygana waa ku jooga ee Maxamed Sudi. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabtayda ku xiran page-kayga Samawade Media iyo waliba YouTube-kayga Farxadda Media. meel walba joogtiin waxaan idin leeyahay isku soo noqod wanaagsan. maalmahan waa mashquulsanaay, gurguuro ayaan ku jiray, gurigii ayaan ka guurayay, marka waa isku soo laaban. mar dhow studio ayaan camiran doonaa oon sharaxa doonaa barnaamijyadii iyo wararkii iyo siyaasaddiina waa isla falaaqayn doonaa iyo waliba reaction-ka buuqiisa iyo qabshaxdiisa wata. si lamida dhabarkayga waxaa ka muuqdo calanka Djibouti. waxaa laga yaabaa in isweydiinayso war Suudi oo Djiboutiana naqata maxay tahay calankii Soomaaliya kuma surno oo kii aad ka soo jeedo ee Galmudugna kuma surree maxuu yahay calanka dhabarkaada suran. run ahaantii calanka Djibouti sharaf iyo karaamo ay uga mudan yahay. meeshaasna waxaa gaarsiiyay dadkiisa reer Djibouti. halkan aan ku noolahay ee Faransiiska waxaa ku nool jaaliyado fara badan. haddii aan lahayd jaaliyada Djibouti, haddii aan lahayd midda Galmudug, Hirshabeelle, Puntland, Somaliland iyo waliba Khaatume State hadda dib nooga soo biirtay iyo qabshax kale xaflada iska dhigtaan. laakiin si kastaba ahaatee kaalinta koobaad ee marti sharafta iyo dadka qiimeyntooda waxaan siiyay walaalaha Djibouti. saas ayaana keentay inay calankooda dhabarka dambe surto. Djiboutiyaanku waa dad qalbi wanaagsan, run ahaantii waa dad bini'aadanimada wax ka yaqaanin. sababtu waxaa laga yaabaa inay yihiin dad nabad kusoo barbaaray oon colaad weli arkin, saasna ay qalbigooda u yahay cad sidii xaanshida wax lagu qoro kale. meel walba joogtiin walaalaha Djibouti waxaan idin leeyahay qalbi samidiina ku noolaada. laakiin kaalinta labaadna waxaan sii lahay jaaliyada Puntland ee ku dhaqan dalka Faransiiska. run ahaantii dadka reer Puntland markii ay kuu soo jeedaan wax ka wanaagsan ma jiraan. sharafta iyo qiimaha ay ku yeelayaan adigana waa inaa u yeeshaan. waxay yaqaaneen wariyaha sharaftiisa, waxay yaqaaneen dadka miisaan kale ee ku nool Paris sharaftooda ay yaqaanaan. reer Puntland waxaa idin leeyahay waxaad tihiin dad la kaftami karo, aan uqdad aqoonin, dad waxaad tihiin raganimada wax ka yaqaano. adigana salaan ayaa labada gacmood kugu saaraya maadaama tihiin hooyadii federaalka. aad u mahadsantihiin. laakiin inta soo harto midda aan ka tirsanahay ee Galmudug, midda aan u dhashay ee Hirshabeelle iyo kuwa kaleba, ayaga faraq iskaga dhagan. horta maxay dad sharfaanba ayaga ayaa faraq iskaga dhagan. maxay dad sharfaan war Galmudug iyo Hirshabeelle iyo qabshaxda kale oo Faransa ku nool jaaliyada maba tihiinba. adinka faraq iskaga dhagan, adinka laba isku haysatiin, adinka waxaa waay dadkiina ugu jaahilsanay hormuud ka dhigateen. war dadka wax bartay ee wax hogaamin karo uma jeedaani meel ayna jirin bahash ayaad ka raadisaan. waxaan idin leeyahay idima necbi walaalihii ay kala tihiin calamadiina saan sida Djibouti waa loo sharfi doonaa because maxaa yeelay walaalaha Djibouti xafladoodii ugu dambeysay calankiyo weyn oo go'a ayaa la hujiyay, calankiyo yar ayaa la siiyay. walaalaha Puntland sidoo kale waa idin salaama. aad iyo aad u mahadsantihiin. aniguna waxaan ahay Maxamed Sudi. muuqaalkana waxaad ka daawanaysiin Samawade Media iyo waliba YouTube-kayga Farxadda Media. page-ka share garay, commentiga fikradaada saliim ka dhiibo, leegtana u badiso muuqaalka meel u gaaro. intii aan ka samaysan doono background qurux badan oo kan ka quruxsan iga dambeeyo waa kulan dambe iyo Sudi oo idin leh sidaas iyo ku darsahe amaano Allah.